Soomaalida dacwadeedii iyo saxwadeedii iyo baraarugeedu waqti aan fogeyn buu bilowday raggii bilaabay baa weli nool haddana maca daalika midhahan cajabta badan baa ka soo baxay dumarka Soomaalidu ma xijaabnaan jirin xijaabkan magaalooyinkii wada gaadhay ayaa ka soo baxay masaajidaad arkaysaan ee dhalinyarada meel laga kala fadhiista lalaaya dhowr oday baa ku tukan jiray dhowr oday baa ku tukan jiray bal waxaan aniga garanayaa aan xusuusnahay dhalinyaraan ahay dhalinyarada tukata waa la dacaayadin jiray oo annagoo xataa xishoonnaan garanayaa oo salaada ka xishoon oo nala dacaayadeeyo oo la yidhaahdo muxuu ahaayey say biyo ugu wadeen buu maxanahay yuu bahalkii ka qoyay oo ka jilcay oo bahal dacaayadda faraxna lagaga qaado oon dhuundhuumanno waan garanayaa ilaan shaaricii iyo mujtamacii wixii baa laga haysta salaad la'aantii baa qaalib ah dumarka iyaga warkooda iska badaa inan tukata in la helaayo naadir bay ahayd yani haweenay la qabo ama muxuu ahaayey mid la furay oo carmala ama garooba inay tukato way suroobi kartaa laakiin inan gashaantiyo tukataay naadir bay ahaan jirtay yaa habar tukatay ahaan jirtay habraha tukan jirtay laakiin habruhu ma tukan jirin wadaad hadda nooloo wadaadada ducaadda ka mid raggii dacwada bilaabay ka mid ahaa baa ii sheekeeyo isagoo malaha bari jooga wuxuu u baahday inuu guursado gabadh inan oo guursado inan muxuu ahaayey gashaanti ah oo guursado raadiyay oo tukata bari baan ka bilaabay gobolada dhaxaan maray inta muxuu raad goobahaya inan salaad tukata inan quraan taqaana ma inan cilmi taqaana ma waa inan tukato oo shanta salaadood tukato xamar baan maray ilaa waa kismaayaan sii maray intaasoo dhan waan la ahay baydhabaan tegey baydhabo markaan tegey waa xuduuddii waddanka oo Kenya la sii kala yaamufto halkaa markaan marayo iyo gado oo aan ku soo bixi waayay buri inan tukata ayaan markaa waxaan isku qanciyay wartaa heli maysire bal inan uu aabaheed sheekh yahay oo guri xulibo uu ka soo jeedo bal raadi markaasaa idhi buuri waa tanaasulay moogtahay walba qoys wadaada inan ka soo jeeda hala ii raadi gabadha inan aabaheed macalli baa la ii keenay buuri gabadhii markii la ii meheriyey baan damcay buuri intaanaa goosha isugu tegin bal inay salaada tukato amal weysiisaan idhi mise weysaba ma taqaan anigii baa tustusay oo weysaysatay markii dambe markaasaa waxaan idhi buuri bal tuko oo say u tukan maba taqaanee salaadba ma garanaysaba waa waqti dhow ninka iiga sheekeynaya waa nin culimo ah maanta heerkeen joognaa marka yaa maanta heerkeen joognaa iska dhaaf muxuu ahaayey ee salaade habla yaryar oo 10 jir ah oo quraanka xifdisan oo shariicadii wax badan ka yaqaana midho waxa inoo soo go'ay alxamdulillah aad iyo aad qaali u ah muddada gaaban gudaheeda isbedel weyn baa ku dhacay ummadii Soomaaliyeed oo waliba shariica kasta galay shariica kasta yaa xataa siyaasiyiintii ugu fogaan jiray diinta maanta waad aragteen oo markay doorasho galahayaan gadaal dambe waxay ka sameeyaan nin walba wuxuu ku doorasho galahayaan wardiqaadkana ma cuno sigaarkana ma cabo ninka ugu sliita wuxuu leeyahay goor waxaan dhageysanayay Soomaaliland rag ka tirtay mid ka mid nin markaasi muslima ma ahayn qoladii muxuu ahay gaalada lagu xaman jiray markay BBC ka dhageysanayay wuxuu leeyahay waan anigu diintaan idinku dhaqayaa ma dhahaye laakiin wasiir baan idin sameyn diinta u xilsaaran wasiir diinta u xilsaaran baan idin sameyn buu leeyahay intaas uu doorasho ka raadinahay kii kale muslima waa meeshiisaba waxa maxay ku tusaysaa waa isbedel yimid waa isbedel xataa siyaasiyiintii kale